madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo kala badh cimrigiisa xukumaya dalka Uganda waraysi uu siiyay warbaahinta laga leeyahay dalka Faransiiska waxa uu si cad uga hadlay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waliba marka ay joogto xaaladda hadda taagan ee ishaynta madaxda ugu sareysa hay'adaha muddo dhaafka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadiisa sanadkii 15aad ugu dhashay Soomaaliya iyo waxa loogu yeeri karo habdhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku sifeeyay siyaasadda Soomaaliya mid bugta kama uusan gambanin u sameeyo erebixin cusub oo ah siyaasadda AIDS-ku waa xanuun dilaa ah oo loo dhinto dad badan ayaana u garan og HIV AIDS marka uu la fulgalo xanuunsidahaasi ugu yeeritaanka ereygan ee inuu isticmaalay Yoweri Museveni siyaasiyiinta Soomaalida ayaa ka dhigan in siyaasiyiinta Soomaalidu ay tahay siyaasadoodu mid dhimatay aan lahayn horu socod iyo meeshii shalay in laga gudbo mana uusan qaran in uu hadda si weyn u sii sheego in aafadu ay tahay ishaynta dhinacyada siyaasadda oo uu sheegay inaysan ahayn kuwa ka gudbaya hadba duruufaha taagan markastana eeganaya danahooda gaarka ah waraysiga uu siiyey France 24 oo laga sii daayay maanta warbaahinta wuxuu ku sifeeyay inuu si weyn uga niyad jabsan yahay kana daalay muranada siyaasadeed ee aan dhammaadka lahayn kuwaasoo ka socda caasimadda Soomaaliya wuxuu sheegay in ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya uu kala soo baxayo haddii aan xal degdeg loo helin arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya xiisadihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay waxa uu sheegay inay yihiin kuwa laga baaqsan karay oo halis ah taas ayuuna sheegay inuu walwal ka qabo dhammaan geedi socodka maaraynta arrimaha kormeerayaasha caalamigii waxa ay horay iyana walaac uga muujiyeen khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya sida muuqata hadalka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ee ku wajahan Soomaaliya dalkiisu waa dalka ugu badan ee ciidamada AMISOM ay ka socdaan ee ku sugan Soomaaliya wax ka badan 14 sano ujeedada ugu weyn ee hadalkan waxa loo arkaa inay tahay inuu doonayo in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay yihiin kuwo aan u soo jeedin danaha dalka ay sheeganayaan hoggaankiisa sida lagu xasuusto Yoweri Museveni waxa uu horay u martigeliyay kulankii Kampala Accord ee dawladda Soomaaliya looga saaray ku-meelgaarnimada waxa mar loo arkaa inuu yahay ninka kaliya ee hogaamiyaasha wadamada ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee ay ka go'an tahay in dawladnimadeeda la soo celiyo hase yeeshee 8 sano ee la soo dhaafay waxa uu arkay in siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku jiraan ciyaar iyo hanti gurasho taas oo marar badan si aan caadi ahayn si toos ah ugu sheegay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida hadalkiisa cusub ee ku wajahan arrinta Soomaaliya waxa ay muujinaysaa niyad jabka ay qabaan wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya sidaas oo kale hogaamiyaasha gobolka ayaa muujinaya dareen aan wax badan ka duwanayn midka Yoweri Museveni inkastoo ay qarsanayaan haddana Yoweri Museveni siyaasadda AIDS-ka inuu ugu yeero Soomaalida waxa la rumaysan yahay in garwadeen ay ka yihiin siyaasiyiinta Soomaalida oo markasta xoogga saara danahooda gaarka aanan eegin danta guud ee Soomaalida Soomaaliya hadda waxa ay bartan kaga jirtaa marxalad xasaasi ah oo ah arrimaha doorashooyinka oo la filayay in loo dhaqaaqo ha yeeshee isqabadka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa xaaladdu cirka ku sii shareeray agaasimayaal hay'ado sirdoon oo xilal kala duwan loo magacaabay kuwa laga qaaday iyo sidoo kale wasiir la cayriyayba waxa ay ka dhigan tahay in wali xaaladdu ay taagan tahay isgoys halis badan hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliduna way la kala safan yihiin darafyada inkasta oo wali jiro dadaal xoog leh oo la xariirin xaaladda la xalliyo haddana rajada la qabi karo waa in siyaasiga Soomaaliga markasta uu tiisa ku dhagan yahay ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda